ayaan baad u malaynaysaa ma shaqaynayso in ilmaha guryaha laga cayriyo shaqayn maysa maanta waa inaad ogaataan waxyaabaha aan shaqaynaynin bay ka mid tahay waxaa ka mid ah waxyaabaha khaldan walaalayaal oo khaladka oo suuragalayn inaan maanta inaguna ku dhaqanno tadakhul al-aakhariina fi tarbiyati al-awlaad inay soo dhax galaan dad kale oon tarbiyada wax ka aqoonin ba adiga kula soo qabsaday tarbiyadii sidan yeel iyo sidan yeel tusaale haddaan soo qaadano aabbaha oo kale ama awowga oo sidaan sheegnay hadda xilli kale isagu noolaan jiray noloshana taa way ka bedelay ugu yaraan Mareykan lama joogin soo sidaas ma aabbiyo hooyo Mareykan ma ina joogin tuulay deganayeen tuulo wayna sidaa ku fikirta adiga aabbihi baa kula joogo kula degan wuxuu ku leeyahay ilmaha sidan ha u tarbiyaynin oo sidan ha yeelin ilmaha cuntada ka celi ilmaha guriga ka cayri ilmaha u shaqaado oo dil marka xilligan aabbo wuu ka bedelan yahay xilligaad ogeyde waxyaabo kale aan ku tarbiyeynayna waa inaad tiraado wax fiican ku tarbiyeyso laakiin aabbo waxyaabo ku tarbiyeyn karaa jiro oo wali jooga qiyamkii iyo akhlaaqdii xilligii hore jiri jirtay hadda maanta waxaa jiri jirtay akhlaaq waagii hore jirtoon hadda maanta jirin baa jirta maxaa ka mid ah ma taqaanaan deeqsinimada ka mid alkaram waxa la yiraahdo ashujaaca ka mid karamkii iyo deeqsinimadii awowga ka yaqaan awowga ku waaniye ilmaha reerka dadka waa la marti gelin jiray laakiin maanta waa la iska seexdaa soo sidaas ma marka waa inaad umuurtaana dadan kaaga ilmihii oo laga tago oo aabbuhu intuu shaqo iska aadi iyo meel kale iyo iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha tarbiyada ilmaha hoos u dhigaya ayay ka mid tahay waxa ka mid ah ilmaha inaan loo ogolaanin inuu dadka kala dhex galo murac aabbuhu wuxuu rabaa 24 saac inuu guriga fadhiyo hooyadu waxay rabtaa inay guriga ku ilaaliso baabuurka hadduu bixina baabuurka kula jiro hadduu meel kala fadhiyana isaga inuu ag fadhiyo haddii kalena dadka waaweyn odayaasha markuu la sheekaysa wuxuu rabaa cunugiisa oo yar inuu ag fadhiyo saasi waa khalad cunugaagu wuxuu rabaa ilmo isaga leeg oo ku irtiyaaxuu rabaa sida ilmaha yaryar u sheekaystaan ma aragteen hadda waddankan iyo afka lagu hadli waa af shimbireed bay ku wada hadlaan baan u malayn afka ay ku wada hadlayaan Soomaali ariga say isu fahmayaan haddaad soo qabato wax yar uu saa ku ag fadhinaya wuu kaa cararaya haddan marka ilmaha waa inaad u ogolaato dad oo lamida isaga oo da'diisa inuu ilmuhu dheeho waa inaad u ogolaato way waxaa ka mid ah ilmahaaga inaad meel kale u dirto isagoo yar baad waddan kale u dirtay wax ka soo baraa tiri maalan waa ilmo yaroo reerna aan lahayn xaasna aan lahayn waddan hebel intaad aaddo orod wax ka soo baro fitantii iyo mashaakilkii iyo dumarkii qaawanaa iyo wax walba meel walba taaganood u jeeda ilmihii macsiya ayuu lugta la gelaya taasaa ka mid waxaa ka mid ah walaalayaal waxyaabaha khaldan ilmaha ra'yigiisa iyo fikradda uu keeno inaan la qaadanin hadduu fikrad fiican keeno inaan la qaadanin baa ka mid ah waxyaabaha qaladka war ilmihiina ma la tashataan ma dhacdaa hooyadu inta gabadha soo u yeedho inaad tira hooyo balkaale arrin baa jirtay maantaan ka wada hadal umuurta noocaas igala tali aabuu wiilka ma la tashadaa mise wuxuu yiraahdaa hadduu ii bilaabo inuu hadlo waa in ilmaha lala tashado waa in mararka qaarna iyaga warkoodaba la qaataba wuxuu ogaanayaa inuu yahay qof muhiima wuxuu ogaanayaa inuu qoyska dhexdiisa nin maasha Allah muhiima ka yahay fikradiisu way socotaa aqligiisu waa u kordhaya waxa uu ziyaadaya ilmahaas isaga dhan farxad iyo waxa ku abuurmaysa ilmahaaga soo qaado waxaan xusuustaa aniga waagan yaraa abi yarhamuhullah abaya u naxariisto anigoo yar buu arrin igala tashaday aadna waan u yaraa 10 iyo ma aqaan waxaan jiray arrin muhiima oo masiirka ummadda waxyaabaha ugu muhiimsan buu igala tashaday ilaa hadda waan xusuustaa waligay ma ilaawin markaan xusuustaba waan ku farxaa haye maxaa i xusuusiyay arrinta noocaas waxaan ku xusuustaa wanaagii uu ii galay iyo tashigii kaliya wixii weydiiyay aabbo arrin baa jirta maanta balkaalaan ka wada hadal leh ilmahaagu ilaawi maayo arrimaha noocaas ma halmaamayo war waa inaad ilmaha la tashataan hooyooyinka iyo aabbayaalkuba ilmaha inay la tashadaan baa loo baahan yahay waxaa ka mid ah ilmaha inaan la amrin aamusun wax la yidhahdo inaad la dul taagnaanin war ilmuhu maraatin ha hadlee waa in la daayo hadduu umuurta la soo waa inuu waxyaabaha qaar uu ka hadlay kalood fikradiisa aad ogaato ayaa loo baahan yahay waxyaabaha khaladka waxaa ka mid ah taleefanku hadduu soo dhaco hooyadii baa joogta matalan taleefankii baa soo dhacay aabuu ilmaha wuxuu leeyahay ha qabanin taleefanka marnaba ha qabanin adugu waa khalad kale shakhsiyadiisii baa meel looga dhacay waa inuu ilmuhu taleefanka qaban karo qofkii la rabana ha loogu yeero arrintan kalena waa inaad ogaataan aan soo wadno waxaa weeye hooyada in la xaqiro aabbayaalka oo aad u ogaada hooyada ood xaqirtaan ood hooyada meesha ka saartaan hadalla xunxun aad ku tiraahdo iyadii markaad aragto cunugaagii laba arrimood midunbuu kaa qaadanayaa intay hooyada mawqidu dacfi wax la yidhahday joogtaa iyadaa maanta tabar yar maxaa jira waa la gulguulaya hooyadii hadalla xun baa lagu leeyahay aabbihii baa qawi ah oo maanta seeftiisu bannaanka taallaa hooyadii u hanjabaya
cunugaasi wuxuu isku dayayaa sidoo hooyadii kaaga dhicin lahaa cuqdadu maalinta ku qaadana waligi hooyo la jiraya waa qodobka labaad ee cunugu qaadi karo waxa kamid ah inuu u arko hooyadu wax la iska canaanto inay tahay isaguna bari uu iska canaanto yiraahdo adigu waxba ma tiida maxaad ii sheegaysaa maxaa yeelay aabiyo wuxuu arkay mar walba canaananayo aqli darri iyo xumaan iyo wax tabar la'aan iyo wax walba ku sheegayo hooyada labada arrimoodba markaan isku soo celino qofka khasaaray aabaha way wuxuuna waayay hooyada in wax laga maqlo meesha ka waayay oo tarbiyadii lala tarbiyeeyo waxa kamid ah waxyaabaha khaladka ah in ilmaha lagu ceebeeyo abtiyaalkii oo kale aabayaalka qaar baa jira war waxan qabinimada iyo doqonnimada reebtiga uu ka keenay dhahay umurta noocaas khalad kale ilmaha laga galayo waxa kamid oo kale waxyaabaha khaladka mufaadala ilmaha in la kala fadilo oo la yiraahdo hebel ninka la yiraahdo ilmahayga u aqli badan hebel ilmahayga wuu doqonsan yahay soo sidaas ma kulligiin waad sameeysan waan ogaa waxa dadaan ilmahay aan anigu dhalay hebel baa u fiican hebel baa u aqli badan maxaad u malaynaysaa kii kale markuu kelimada ka maqlo ninkaas ma u malay inuu baari adiga ku noqon doono war ilmaha uu isku wada mid weey wax ka fiican male beenta ilmaha barin horan uga soo hadalay ku noqon mayn arin kale oo khalada ayaa jirta hooyada u sheegaya arintaas iyada waxa weeye ilmaha aabuhu markuu la hadlo oo yiraahdo war away hebel iyo heblaayo waxa ma qabateen maxaad maanta u qaban weydeen waxoogaa canaana hadduu ku tuuro inay tiraahdo war ilmaha iida oo igala hadlo waa qalad kale weey hooyooyinkaas sameeya ha difaacina ilmaha qalad labaadood gashaan baa jiray ogaada isagana oo wuxuu yahay haddii hooyada iyo ilmaha inta badan wax isku qarsada waxyaabaha ilmuhu sameynayaan hooyada ka warqabta hooyadu way qarisaa umurta aabaha uma sheegto waxay leedahay anaa ku qarinay hooyo qarib u leeyahay way anaa ku qarinay isug beelad umurtaasna waa khalad kale way aabaha u sheeg maanta caawa adigoo si wanaagsan ugu sheegay waa inaad tirada waxa hooyo hadduu kula maxaad ii sheegtay hooyo hadda ma been ban sheegi kara inuu gaagu ha ogaado beenta inaan la sheegi karin marka waa qalad haddaad mubaalaqa xadgudub ilmahaagu inuu fiican yahay uun weligaa ha ku xadgudbin haddaad u fahamta ka waran cunugaaga weligiiba wax ka fiican isaga ma jiro weli waxaa lagu yidhi cunugaagii baa maanta arrintaa iyo arrintaa sameeyey waxaad tiri war naga daaya beenta cunugaygu weligii waxaa ma samaynin wabilcagsi taasoo kale waxaa ka soo horjeeda mubaalaqa fi dhan xumaanta oo kale in cunugaaga aad u malayso uun weligiiba inuusan wax fiican keenaynin waxaad leedahay waxaa la yidhi waxaa fiican baa cunugaagu sameeyey hooyo maanta waxaasaan soo sameeyey umuurtaasaan keenay waxaad leedahay war naga aamus waxba maada keenin waan ogahay weligaaba inaada mid wax keenin aad tahay cabsidana horey baan uga hadalay khajalka iyo waxyaabaha la yidhahdo khoofka ilmaha ayaan lagu barbaarinin qadabka iyo carada degdega ayaan lagu barbaarinin waxa la yiraahdo xasad ilmaha walaalihiisa si uusan ugu qaadin muyuucada iyo iska dabagalka dadka kale xuquuqul waalidiinka umurta ha looga wada hadlo waxa ay dhiman daqiiqo iyo labo waxaan u gudbayaa qayb yar oo muhiim iyaduna oo ah inxiraafka ilmuhu siday u khaldamaan khaladka ilmaha raba inaan wax yar idin ka sheego khaladka ilmaha waxa keena in ilmuhu waxa weeye inxiraafaan waxa weeye inuu ilmihi ka qaloocsamo oo ilmihi ka dhumo oo waxaad maqlaysaa ilmaha iga dhumay hal igu ducay ilmaha iga dhumay hal igu ducay maalin walba la leeyahay maxaa keena asbaabta ilmuhu ku dhimaan kow iyo laba wax yar dhahayna waxa kamida in la ihmaaliyo aabihi hooyadu ay tarbiyadii ilmaha faraha ka qaadaan oo ihmaaliyaan baa kamida waxa kamida qaybta aad u dhageysta waxyaabaha ilmaha dhumiya waxa kamida jacaylka tirada badan ee cunuga loo qabo oo xadda kamida mayaca la gelinayo cunuga la mayicinayo taasina waa khalad kale ogaado ilmaha laga galaayo ilmahaas waxa weeye waa usluubka uu ku inxiraafay kamida waxa kamida waxyaabaha ilmuhu ula qaloocsamayo labada waalid oo mar walba doodaya aabihi hooyadu heshiisba ma aha